isboortigu dhaqanka suuban iyo garaad ku dhisaya isboortigu dhaqanka suuban iyo garaad ku dhisaya ifta balwada horseeda isku dhaca qabiilkay ciyaaruhu reebaya isku dhaca qabiilkay ciyaaruhu reebayaan ciyaaruhu reebayaan isboortigu reebayaan isboortigu dhaqanka suuban iyo garaad ku dhisaya isboortigu dhaqanka suuban iyo garaad ku dhisaya ifta balwada horseeda isku dhaca qabiilkay ciyaaruhu reebayaan isku dhaca qabiilkay ciyaaruhu reebayaan ciyaaruhu reebayaan isboortigu reebayaan isfahan wacan bay dhaliyaan ciyaaruhu bulshaday isku soo dhoweeyaan ciyaaruhu midnimo qaran bay dhidbaan ciyaaruhu isfahan wacan bay dhaliyaan ciyaaruhu bulshaday isku soo dhoweeyaan ciyaaruhu midnimo qaran bay dhidbaan ciyaaruhu waxaa loo xulay dhalintaas si loo helo kooxa dhiiran dalkiyo deegaanada dhigooda markii tartan loo dhigaayo dhalinyaro soo hoysa guusha celiyo guddigii ka shaqaynaysay koobkan 11 kooxood ay ka qayb qaateen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan u soo daadiyeen mar labaad waxaan u mahad celinayaa gobolladii ka qayb qaatay ee runtii magaalada soo camiray iyagana waan mahad celinayaa mar saddexaad runtii waxaan jeclahay inuu mahad celiyo dahabshiil oo gacan weyn ka geysatay hirgelidda koobkan oo maalgelintiisa qayb ka qaadatay iyagana waan mahad celinayaa tashanaad waxaan u mahad celinayaa dawladda hoose iyaguna runtii gacan ku lahaa iyagana waan mahad celinayaa ciyaaraha badhasaabka gobolka iyo maayarka oo aan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin inaad soo diyaarisaan ciyaartan quruxda badan marka labaad waxaan u hambaleynayaa labadii kooxood ee ciyaarayay gaar ahaan kooxdii aan taageersanaayo gobolka Tagdheer waxaan leeyahay waa guulaysateen waxaan hambalyo siinayaa oo iyagana aan u hambaleynayaa gobolka Gabiile oo iyaguna muujiyay ciyaar qurux badan iyo guusha ay ku guulaysteen waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin waa ciyaar qurux badan baad muujiseen waxaan rajaynayaa mustaqbalka halka ay halkii ka sii wanaagsan in gobolkuna uu muujin doono ciyaar wanaagsan iyo garoon qurux badan insha Allah isugu yimaado mustaqbalka aad baa u mahadsantihiin waan salaamayaa assalaamu calaykum waxaan mar labaad u mahad celinayaa dahabshiil group oo iyadna qaybihii ka soo qayb qaadatay waxaan u mahad celinayaa dawladda hoose iyo maayarkeega dhammaan cid kastoo ka soo qayb qaadatay waan u mahad celinayaa waxaan kale oo u mahad celinayaa ugu dambayn labadii kooxood ee halkan ku ciyaaray ee ciyaar wanaagga muujiyey iyagana waan u mahad celinayaa inkastoo anigu Gabiile ahaa oo wasiirka ka badiyay wasiirka Burca ahaa iyadana waxaan leeyahay ciyaartu waa barcad iyo barmadow wasiir waan adigana hambalyan ku leeyahay farxad weyn bay maanta kala ay tahay in tartanka gobolada ee ciyaaryahanadii cuslaaday ay Gabiile marti geliso wuxuu baan oran karaa waxay tani goosha waxaanaysaa sidii ciyaarihii gobolada Soomaaliland xilligoodii loo qorsheyn lahaa ee loo qaban lahaa maayarka waxaan leeyahay maayar maanta ciyaariha gobolada Soomaaliland hawd hadduu qaadi lahaa tartankan oo kale dabaaldeg uu badan lahaa waa in laga dareemaa Gabiile inay qaaday dabaaldega ka dhaca gobolka Gabiile haddii la yiraahdo anigoo ku hadlaya magaca wasiirka dhalinyarta ee ciyaaraha oo runtii safar shaqo ku maqan hambalyo baan leenahay Gabiile taageerayaasha inta ciyaaruhu socdeen sida qurux badan uga soo qayb galay hambalyo baan leenahay 11 gobol ee ka qayb galay tartankan dhalinyarada cuslaatay ee gobolada tartankani wuxuu bil ka hor ka bilaabmay gobolka Gabiile goobjoog baan u ahaayoo maalintii u horeysay anoo markii aan eegay
gobolkii u horeeyaan yimi wuxuu noqday Gabiile ilaahay mahadii maanta way finalkii tahayna oo lagu kala calaf qaaday oo ay Gabiile hanatay koobkiina marka koobaad Gabiile baan leeyahay hambalyo marka labaadna waxaan hambalyo leeyahay 12 gobol ee ka soo qayb galay koobkan marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa shirkadda Dahabshiil iyo maamulkeeda oo shaqo badan oo runtii gobolada dalka maayarka markasta dhinac istaaga ama dhiiri geliya dhalinyaradii hore iyo kuwa hadda joogaba waxaan leeyahay maayarada gobolada kale sida maayarka Gabiile dhalinyaradiina garab istaaga dhiiri geliya koobabka dhalinyarada cuslaatay qabta kuwa hadda ciyaarana garabka uu siiyo oo kale madaxda gudoomiye iyo saacadda wasiir iyo wasiir ku xigeen koobka waxa ka soo qayb galay marka hore 12 gobol oo ka mid ah gobolada Soomaaliland wuxuu socday muddo bil iyo dheeraad koobkii noo socday koobka waxa ka qayb qaatay shirkadda Dahabshiil Group sidoo kale koobka waxa qaybta ugu weyn lahayd dawladda hoose degmada Gabiley fikirka koobka waxa lahaa saaxiibkay Badar Baanche oo ah nin reer Burca ka soo jeeda koobkan dhowr jeer hore ayuu soo qabsoomay gobolada barigu ka socday waxa lagu soo ciyaaray Burco iyo Berbera waqtiga hore wuxuu kaga duwan yahay imika waxa la ciyaaraya marka hore naadiye ahaayeen bas salagshano laakiin maanta kan wuxuu kaga duwan yahay 12 gobol oo ciyaarayeen lejanadii hore ee soo maray goboladooda oo matalayeen koobka waxa ka soo qayb qaatay oo ciyaaray oo halkan yimiday ugu yaraan tiro 3 wasiir ilaa 2 wasiira oo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyaradu uu hogaaminayay oo gobolka Sel lahaa wasiirka cadaaladda oo gobolka Daadmeer ahaa maayarka gobolka Gabiley oo ah iminka guuleystayaasha championka sidoo kale gudoomiyaha bangiga Soomaaliland oo gobolka maanta isna kaanta labaad ku hadhay ku jiray agaasimayaal guud oo u horeeyay agaasimo baaxo oo ku jira gobolka Gabiley agaasimaha caafimaadka waxa iskugu yimiday mas'uuliyiintii qaranka oo dhameystiran waxay nooga dhigay koobkani ka gobol ahaan sharaf weyn iyo karaamo weyn